Wankudonayayo adiga madarada indihidale la 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 Ashaqa mabaran weli mana beeninaye kubogeye inayahay odaygii maanta waa raaxaysanaya intaan Jarmal joogay dalxiis noocaasa ma arkin caasha wujuud ma cidlaan ku xiraysnaa idinkana waa idin la haray inta qol cidlaa baa ka soo nacnacleen jiray yaa odaygii maanta laashkiisa wataa waxa weeye waa sii soconaa Dortmund baan ku soconaa waa dareemaysaan odaygu gaarigiisa in dhow taanu meelaha u kacaysan jirin buu foosta shidaala ku soo shubay kharashka inta leeg waxaan u gelayaa wax kale maaha dadka igu xiran ee sharafta iyo karaamada iga mudan ee qadariya inaanan qolka kaliya ku daalin oo maalin iyo habeen halka uga soo nacnacuranay dadka aan wareejiyo oo nimcada aan ku dhex jiro yaa bal hadaan keeni karin qaarkood yir wadaan keeni karin aan isha ka tuso waan doonayaa فيديوغا iyo warbixinta aan Dortmund ka soo duubayo si fiican magaalo sharaf leh oo aan jecelahay weeyaha loola socdo waa magaalo qiimo leh waxaan u maleynayaa qaar badan oo inay kamida inay kooxda qiimaha leh ee quwadda leh ee halka ka dhisan ay taageeraan marka halala socdo qofkii kooxda taageera commentiga ku soo qoro halala socdo haddaan Dortmund soo galay haddaan magaalada dhex galaynaa waa dhex mushaaxaynaa جلي هذه هوين وأبجوجين ما يادو جوي عاشق عليهم النبات وجكاري ما يوم أدو جلي هذه هوين وأبجوجين ما يادو جوي عاشق عليهم النبات وجكاري ما يوم hadda waxaan ku suganahay xarunta tareemada laga raaco ama Hobban oo waxa loo yaqaan Central Station-ka magaalada Dortmund waxa waa iga dambeeya qofkii tareen u baahan halkaas ka fuulaya xaggana waxa laga gelayaa magaaladii weyneed suuqii laga adeegan jiray ee faras magaalaha haleela socdo warmeeri tiriya baa Soomaali والله سيادة حي حالة هذا هل كانت تقدر مياه في السفر بعد؟ لو حي ما شاء الله ما شاء الله مقعد حلو ده لو جني كتير جني ترى بقى يوصل له مية حاجات ترى كفولية ربنا وفرين عنه كتير حاجة محاجة كتير وسوقي اشتات كوي على كم مكيجر مركا أيوة ذلك ولا لا أنا سرعنا هول مياه ليه ما والله سرعنا مركب مقالة روينا ما أنت وريجو أديكونا أي كلام تستدين دتك الصومالي تسوي وكان وحوي مقالة مقعد محوها ودورتموند ما يرتم شو وين وين والله بحدد وحوي دت الصوماليات بقى يقول حنا هرمي أرك أني والله إني هو وجي قال شيء علي بالله ده هنا في حقله ومالها كقيديان أنا على شيء دم كيل بقى وهون على شيء دم كيل وجي مركب وإسراعنا وحن دوني يا مقالة هنا تستو ماله أو وحوي dadku xuseen kana hada garanayso waa ku gal karaa way nisoo magaalada faras magaalaheedaan joogaa waxyaabo cajiibka aan ku arkay wax kamid ah hadda haraadan tahay jeebka in aad lacag geliso biyeesto uma baahnid halkan lagu sameeyay halka ka cabisa ومقالة برتمه دي وين Dortmund baan maanta marayaa laash kana soo kreesanay shidaal baan ku shubanay harada tan weyn oo u jeedaan baan maanta dhex qaadaynaa muddo hadda waxaan haysanaa hal saaca inaan ku wareegno si xorriya annaga bahalkayga wadana Dortmund waa mid kamid ah magaalooyinka dalka Jarmalka ugu weyn gaar ahaan waxay ku jirtaa kaalinta lixaad ba ku jirtaa waxay dhacdaa gobolka loo yaqaano NRV ee waqooyi galbeed ee xad kala leh dalalka Holland iyo Belgiumka xuduudo magaalooyinka marka tusaale loo soo qaato waxay la leedahay magaalada la yiraahdo Cologne iyo magaalada la yiraahdo Düsseldorf
وأنا وادجنا هاي ميل ودو بندجنا هاي لكن يدا مجال عنا والصومالي مركو يصوّع خاصة دلك دبديسة أما اللي يجي يصوّع الصومالي ده dadka waxaan dhahaa Dortmund baan deganahay waxay leedahay team ciyaara oo aan ku xasuusto sanadii 2012 inay finalka koobka Yurub ay isla gaareen kooxda Barcelona inkastoo aan ka xumahay Barcelona ay ka qaaday koox adag weeye oo astaanteedu ay jaalaha tahay waa magaalo ay ku nool yihiin dad tiro badan gani waxa uu sheegay inay koobka ay ka qaaday kooxda Bayern laakiin ay iyadu tuntay Barcelona haddaan xasuustay ciyaarta aadan xiliyada u daawan jiray intaan garku iga soo bixin timuhuna ay cadaan bidaar yeelan oo kiyaaraha xiran bay ahayd marka Soomaali badan baa ku nool ganacsi bay xataa ku leedahay dukaamaha ka furan sida la ii sheegay Soomaali lagu qiyaaso ilaa 200 oo qof baa ku nool jaaliyada fiican bay ku leeyihiin baa la yiri jaaliyad shaqaysa nin oday maanta xafiiskiisa ku soo booqan lahayn laakiin aan ishaleeli weynay oo cali la yiraahdo oo ka madax yahaysaan xogta ku hayo magaalo kaale iska araga shidan dadka kala dhaqamada duwan kala diimaha duwan ay aad ugu nool yihiin is oranba meesid Jarmal baaba joogtaaba dadkii waxa weey mid madow mid cad mid maxaa ku lahaa Yurub bari ka yimi mid Afrika ka yimi mid Arab ka yimi wax walba waa leedahay lees cunsuriyadeyn ma dadku si nabad ah oo is ixtiraam leh iyadoo qoloba diinteeda ama dhaqankeeda lagu ixtiraamaya lagu wada jooga waa dhiiri gelinaya magaalada in Soomaalidu u soo guuraan sababtoo ah badanaa way fiican tahay in dadku ay hal meel waxa weey la isku urursado dad badan waxa jira badanaa magaalo tuulooyinka marka sharciyada helaan ka soo carara marka Dortmund magaalooyinka la soo beegsado bay kamid tahay xagga shaqada waxa la sheegay inay fiican tahay shirkado badan ay ku yaalin shirkadda Amazon oo hadda Soomaali badan ay u shaqeysaa waa kamid ah shirkadaha ku yaala oo waxa weey dadka aan xirfadoodaba aan ku xeerin bay iska qaataba qofka waxa weey marada luqadda jabsanayso taa Ingiriiska wuxuu kaaga bilaaban yihiin gacanta akurto ay karto karatoon la iska qaadaa laakiin lacagtu waa walbed weeye waxa weey aad ba maxaan ku rahdaa loo bixiyaa magaalada aad baan uga helay hadda waa aragtaan diyaarad baa hawadeeda maraysa waa aragtaan nabadaasaan haysanaa dhulka quruxda leh baan mareynaa gani Katinaako waa kana oday Soomaaliyeed calankii Soomaaliland baa halka ugu xiran waa waxa weey oday Soomaaliyeed kana waa kii Soomaali galbeed halkana calankii Soomaaliya ugu xiran ninka shacniga wanaagga ka muuqda waa aragtaan waa nin odaya isaga ay soo dhaweeyay diyaaradda waa Wizz Air waaye Holland baa waxa laga leeyahay Hungary baa laga leeyahay hadda kormaraa ku safray garoonka Dortmund ba inta badan ka kacla gani waa kaaga mahad celinaya sida magaalada maxaa kula noogu soo dhaweysay halka waxa fadhiya Sakariya nin dhalinyaro ah magaalada muddo ku noola gani oday Soomaaliyeed saddex calan isku sita mid gacanta u suran yahay mid bidixda mid midigta mid qoorta ka laalaado dad kala hadal wax dheh wallahi ma sha Allah horta faaniskaada aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta kula kulmo oo magaaladeeda ay ugu soo booqatid shiina marka waa dareemi kartaa magaalada meelaheeda qaybaheeda ugu qorxooneed baan ku keenay inkastoo qaybo waqti dambe ay imaatay qaybo kale oo badan baa jiro insha Allah waqti kale baan isku heli doonaa oo garoonka weynaa oo naadiga Dortmund baan insha Allah waqti kale aan isla wada qaadanaynaa marka shiina culow soo dhawow baraada maantana waqtigaada aad baan ugu faraxsanahay inaan waqti kula qaato waana kaaga mahad celinayaa sida wanaagsan aad noo soo dhaweysay oo aan magaalada si fiican uga warbixisay defaaniskaadana waxaan leeyahay mar walba waxaan ku tacgelinayaa inuu ahaato dad iska ku taageersan oo mar walbana waxa weeye heegan ku ah nacala shaydaan ku yaala odaga loo calaamaday waa tana magaaladii Dortmund ahayd maanta odaygii laash buu wataa laash arba tahriibba waxa soo xasuustay yaa markii badda militariga la soo jeexaya soo xasuustay magaalo waxaan joognaa hadda meel oo waxa weeye hara weynaatay weeye ilaahay nagu baxsado waxa weeye laashkayga anaga wadana sidii baaskiilkii loogu wadaa waa aragtaan steerinka xagga u leexi dhinaca arabtid gani Katinaako ninka reer Dortmund odayga reer Dortmund jidka iska soo helay gani soo dhaw magaalada nooga warbixi wallahi waa u jeedaa waqti samar baan ku jirnaa magaalada si nasiib la aan wada kulanay marka waa dareemi kartaa macnaha meelaha aan ku keenay iyo meelo kale oo badan baa jiro insha Allah waqti kale oo fiican baan isku imaan doonaa hadii Ilaahay ma sha Allah Dortmund waxa weeye magaalada toddobaad ee dalka Jarmalka ugu weyn waxa ku nool dad lagu qiyaaso 570,000 baa ku nool waa magaalo taariikhiya waa magaalo waxay ku taalaa gobolka la yiraahdo Northern Festival ee xad kala leh dalalka Belgiumka iyo Holland waa magaalo Soomaali badan ay ku nooshahay waa magaalo dadka ajaanibta ay ku badan yihiin
oo midab sooc iyo waxyaabaha nooca huruuf badan iyo dadka ajnabiga ah aysan ku qabin oo magaalo integration badan sameysay oo xagga multiculturalka marka tiraahdo ama dhaqanada kala duwan ay is aqbaleen oo si nabad ah ay ku wada joogaan waa ka xumahay wadamada galbeedka hadda waxa la socotaan in waayadii ugu dambeysay Mareykanka ha ugu darnaado waxyaabo xilli laga sheegayo dadka ninka midabka madow leh qaarkii il adag lagu eegayo Dortmund waxa ka nabad gashay magaalo ii dhoweeye 20 daqiiqo ii jirta magaaladan deganahay marka la dhaho war xagee degan tahay Dortmund baan sheegaa sababtoo ah Soomaalidu inta badan iyada yaqaaniin maanta laashka aad u jeedaan baa gacanteeda ku wata aniga wata Soomaali baan halkooda saaranahay maanta odaygii nimcadaas uu dhex boodaya ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay qaar badan oo idaawada oo dalkii jooga waxa laga yaabaa inay dhahaan taariikhda hadda hoos bay u dhaceysay odaygu markay arkaan ninkii Shiina ahaa oo laashkiisa shidaalka ku shubtay oo badda xigeeda saa u wareegaya inay dhahaan war Yurub nimca taale ka orda war waxa kan dad baale anagu waa ka kireysanay jeebkayaga kula joognaa saacadda aan joogno dalkeenu sida tan iyo si ka fiican buu noqon karaa Soomaaliya ha la maal gashado nabadgelyadeeda ha laga shaqeeyo horumarkeeda ha lagu dadaalo dawlad xumi waa jirtaa adduunka baa la yiri laakiin dawlad la'aanteed dhaantaa wax walba ay tahay gacmaha la qabsadaan leeyahay kor ha loo riixo qofba meel buu meesha keenaa kan bari imaada baa isaguna sii wadi doona oo aan jecel lahay hadda meesha joogto meel ka fiican inuu gaarsiiyo harada arkaysaan dhowr bilood bay dadweynaha u furan tahay waa inta xagaaga ah markay noqoto qaboobaha baraf bay noqonaysaa cid ku dhex socon karta ma lahan hadda laakiin nimcadaas ay leedahay inaga dalkeenu hanfi iyo kulayliyo baraf male dalkeenu inaga halaynee Soomaaliya hooy saacad kasta oo sanadka kamida maalin kasta bil kasta waxa weeye kulayl saayidoo ku dhibayo ku gubayo male qabow baraf oo wadnaha ku qabanayo jaakada kugu reeyana male taasi waxay ku cadeynaysaa inuu yahay dalkeenu dal fiican oo waxa weeye dadkiisu ay la hareen adduunka dhul xumi ma jiro laakiin dad xun baa jira dhulkeena ka fiican laakiin dadka halakan ah baa waxay noqdeen dad aqliga ka shaqeysiyay gacmaha isqabsaday qabyaalada iyo waxa ka tagay dawladnimo iyo nidaam iyaga kala celiyo oo horumarkooda ka shaqeeya samaystay taasaan dhiiri gelinaya waxaan leeyahay inaa halka timaadido isku sawirtid oo maxaan ku rahay dadka dulsaar ka noqotid waxa kaaga fiican oo kaaga sharaf badan inaa dalkaaga ku saburtid dhismihiisa ka qayb qaadatid waxa weeye hadee aynu inagu jiilasheena tan nasiib u yeelan waayeen dalka inay horumarkiisa ka shaqeeyaan waxaan rajaynayaa jiilasheena dambe inay inagu inteenu uga shaqeyno ay intifaacsadaan oo iyaga loo soo dalxiis tago halkii ay ahaan lahayd inay iyagu dalka cararaan iyaga in loo soo dalxiis tago oo dibadaha looga yimaado saasaan jecelahay ummadda Soomaaliyeed saasaan ku dhiiri gelinayaa Dortmund oo magaalo shida oo aan u mahad celinayo hadda wixii ka dambeeya imaashiyaheeda soo booqashadeeda aan badin doono baan ku suganna inaka xayb sida u jeedaan biyahan waxa u malaysaa inay madow yihiin laakiin hadda waxbaan tusinayaa bal eega waa nadiif soo u jeedishinow geni katinato marka waa cabbi kartaa mar walba waa iska filtiraysan yihiin waa ku dabaalan kartaa shiina waqti walba noo iman kartaa geni safarkii way noo soo dhamaaday dadka maxaa leedahay ma sha Allah guul buu noogu soo dhamaaday safarkeeni qofkii stress waayo magaalada uu soo guuri karaa oo meelo kale oo badan baa jiro meeshan ay ka mid tahay shiino adigana mar walba waa noo iman kartaa awalba magaalada marti kuma ahayn waa noo iman jirtay baryahan kadan baa xogaa isweynay marka insha Allah asxaabtaadana waa family qayb ka mid ah way farxadaan la qaybsadaan ayaga oday haye waxa soo dhawow meeshta quruxda badan aan maraysaa ninka kaamirada duubaya muuqaalada quruxda badan baa tahay dadka maxaa leedahay على ذلك سود هذا ما دام مقال قرحة مربل إنسان دوبه ما دام شنو عليه قرش إنسان قلو وهذيك سيدنا كافر حلا هاي وأنا أسيقنا كفر حسيسين نعم شيء سبسكرايب كأودر شير وشير تلاقى كومنتيجا وحلبوا هنا دينك جودة شين واكن نيكي ناخذي يجي لبعض نيكي دونتا وذي سكري سفر كأنه واسوق جبوبي وحوي استيرن كأنا كالو ورجع دتك وحده
waxaa idin leeyahay kusoo dhawaada magaalada naclaa shaydaan igu yaalay waa xiranaynaa hadda wakaas marsadii baan joognaa waa xiranaynaa dekadii wakaas safarkaygii saas ku soo dhammaaday dhinaca badda ahaa kaale iska arag waxaan laga sheekayn karin siciido waa hore ayuu kaa damaysay ceelaayo walaayo walaakin ehelhaa balaayo waqtiyadaas ayuu kaa damaysay waagaan ogaa nin waxa weeye fanaaniinta hadduu afka furto hadda jooga qaar badan oo ka mid ah aan hubo inay maxaan ku idhahdaayay suuqaba ka bixi lahaayeen baa tahay heesihii sidii weli ma isku fiicantihiin wallahi de kolley inkastoo waaye waa dee timi laakiin weli waa turturaa kolley heesaha codkaa haddaa aragtay dadkana ay arkeen oo cod cajiiba u yahay maxaa kuu diiday mikrofona kan hadda saa dadku iska wada sito inaad qabsato maxaa kuu diiday wallahi duruufo jiro bahalkii intuu qiimaha lahaa fanku ma gelin haddeerna waa qiimo dhacay markaa saasaan uga gaabsaday anuu codkaaga waa garanayaa nin fanaana oo culus oo ummadda Soomaaliyeed qiimo kule inaan ahay waa ka dheregsanahay dadka igu xiran hal hees ugu tuur wixii alla ku baraya saa ugu shub okay markaad igu ciyo daakiraada subaxdii duhurkiyo habeenkii duulaan sidaan ahay waxaa lay dulkeenaa lalalala degmadaad ku noosho lalalala naftu waxay dareentaa lilalala innagoo dalxiiso dalaynu joogne waan ku doonayaayo adiga badaraada indhiidaali lalalala waan ku doonayaayo adiga badaraada indhiidaali lalalala naftaa ku diyaare dumartaan ka doortay cawaan dadabgelayna cawaan dadabgelayna warninka naclaa shaydaan ku yaalay sanad sariibka alla saaro maanta dhan Dortmund baan wareegayay hadda waa cashaynaynaa waa tan waxa weeye halka geel lama qasho waxa la qalaa waa digaag weeye shan xabo digaaga noo qalan odagii ka teenaanta waa kana ragii kale waa joogaan siyaalada balaaran baa taala Dortmund oo aan digaag ugu qalan lagama laaban karo marka waxa weeye soo dhawaada nala casheeya nimcada nala nuuga aku darsan lahaa noloshaada inta noloshahay hilibka cad badsada hilibka guduudan lafa xanuun uu leeyahay dhiikar uu leeyahay waxyaabaha ummadda Soomaaliyeed hadda dhameeyay sonkor buu leeyahay bidaartu kugu soo orduu leeyahay ummad iska xanaaqdo waa hilibka geel digaaga ogaada Soomaaliyeed oo kalluunka badsada digaaga badsada argostada badsada dadkayga kelmadda ugu dambaysay Siciid dadkayga kelmadda ugu dambaysay waxaan leenahay ninka Shiina Culaya waa nin qalbi xaaran waa nin aan caadifad lahayn maanta jecel waa nin bulshada Soomaaliyeed ay u siman tahay saqiir iyo kabiir ninka barnaamijyadiisa hal la socdo si gaar ah loo tixgeliyo gani adoo aan amaanteed oday kana soo gabagabeeyay aan ku dheeraanayn dadka Soomaaliyeed waxa dhay igu xiran wallahi intaan dhihi lahaa horaba loo dhahay ma ogtahay marka Shiina waxaan ku dhihi lahaa barnaamijyadaada dadka aadka ugu taxan banahay marka mar walba waxaan kugu dhiirigelin lahaa in macnaha aad hore u sii socotid aad u joojin dadka macnaha waxa dabalaqa yani wada luuqyadana wax wada ma faad hore u socon ku dhihi lahaa insha Allah inta waxaan ku soo gabagabeynayay barnaamijkii sahanka Shiine Culay oo qaybtiisii koowaad oo daahfurkii barnaamijka aan maanta ku soo qaatay magaalada Dortmund oo kamid ah magaalooyinka ugu waaweyn wadanka Jarmalka barnaamijkan waa mid bilow ah oo aan idinku wareejin doono habba mar ama labo bisha kamid aan idin geyn doono wadan cusub ama magaalo cusub tan iyo inta barnaamijka la mid ku mid doono waa musharaxii shilinku reebay Shiine Culay oo ka codsanaya fiidiyoga nacala shaydaan ku yaala inaad si share gareyso channelkeena subscribe gareyso like tiyo commentigana inaad soo badiso nabadgelyo korkiina ha ahaato assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh على شيدان كيال